shirkii sanadlaha ahaa ee Gurra Dhaamoole ee bulshada ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay sanad walba qabsadaan ayaa waxaa sanadkan lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana mowduuca sanadkani uu ahaa oo looga hadlayay horumarka deegaanka warkani waxa magaalada Minneapolis inooga soo diray wariyahayaga Siyaad Saciid Saalax shirweynihii sanadlaha ah ee qurba joogta Gurra Dhaamoole ee ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay gobolka Minnesota shirkan oo ahaa shir ku saabsan xagga horumarinta deegaanka ayaa waxaa laga hadlay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada caafimaadka ee deegaankaas qurba joogtuna uga qayb qaadan lahaayeen horumarka deegaanka ugu horeyn waxaa meesha ka hadlay Sheekh Suumo waxaan aad ugu mahadcelinayaa jaaliyada reer Gurra Dhaamoole ee shirkan maanta ka soo qayb gashay sida sharafta leh ay soo xilqaameen ee aad iyo aad u qiimaha iyo qaayaha badan iyagoo aad iyo aad u daneynaya guud ahaan kililka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyagoo aad iyo aad u jecel horumarkiisa wanaagiisa iyo sida madaxweynuhu oo arintaas ugu jajaban yahay ee u dadaalaya iyo dhismaha xagga iskuulada xagga waxbarashada xagga maxay beeraha xagga biyaha xagga jidadka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxa la yiri raxmad ilaahay baa markaliya meel gaadha marka waxaan rajaynaynaa wixii dib u dhacayna in uu dib u sii sameyn doono sixina doono aad iyo aad baan ugu rajo weynahay warbaahinta uga jeedinaya jaariyada Gurre ku nool Mareykanka dhamaantood sidii dalka ay wax ugu qaban lahaayeen dhismihiisa uga qayb gali lahaayeen bulshada uga qayb gali lahaayeen abaabulkooda uga qayb gali lahaayeen dhismihii dalka uga qayb gali lahaayeen waxbarashada cunuga yar soo koraya ee u baahan iskuul inaan muxuu ahaaye annagu xoog ka geysano sida iskuulaadka inaan xoog ka geysano sida jidadka la dhisaayo inaan xoog ka geysano sida isbitaalada inaynu xoog ka geysano aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalka ka soo qaybgasheen shirkii sanadlaha ahaa ee jaaliyada qurba joogta Gurra Dhaamoole oo maanta ka dhacaya magaalada Minneapolis taariikhdu ay tahay August 23 2014 aniga nageela hadda markaan tagay oo wadamadii kale dadkoodii kala aan soo marayna isku nooc manaan ahayn nageela qof baa u maqan ama Gurra Dhaamoole qof baa u maqan ma dhehaysid dadka nagi waa sidiisii wax isbedelay male sidoo Xuseen Xulbaale sheegay annaga doctorro u ah annaga mutacallimiin u ah annaga maalqabeen u ah annagayna sugayaan waxa la yaab kale aniga gabdhaha ii imaaday urur oo nageela joogo oo gabdho Gurra Dhaamoole waxay dhaheen Xaliimoy waxaan sugaynaa adinka inaadna soo habaysaan oo wax nala qabataan oo dadka naga xanuunsan oo baadiyaha joogo at least dhakhtar yar u furno maxaad ku ogta bootadii America don't worry baan laabtan soo garaacay bal waxaad yeelaysiin inta dhulka ka kacdiin is habaysiin yar iyo weyn oday ilmo kulli inta la isbaraaruji bal dalkii haloo kaco haloo ciidmo niman dadkiisu ahlan yaa u hadla ilmo haduu ooyo hooyada kolku qaylidiisa iska aamusan kii oo ay caana siisaa kii aamusan way intay ka tilaabsatay kii oo ay caana siin hadaan annagu intaan qaylin isbaraarujin yaa noo maqan dalkeena naka u maqan inaad istaagtiin waay inaad farmida noqotiin gacan garabay wax ku goosaa fartan haday jabta fartana lagu qabaa oo isugaayo maxaa soo qabtay maxaa se qaban doonaa annaga hadda waxaan rabnaa wixii hore aan u qabanay maxaa noo qabsoomay inaan dhahno hadda kadibna maxaan qaban karnaa inaan dhahno wixii noo dhiman aan qabanno kulley waxa noo dhiman waa taqaani waa wixii hadda laga wada dhawaajinayay waxaan rajeynayaa insha Allah hadduu Ilaahay awood la yiraahdo waxayaan laga soo cabanayo inaan dabooli karno hadduu Ilaahay awood la yiraahdo insha Allah waa sameeynaa wixii aan ka soo tagnay sidaan wax ku qaban lahayn waan sameeynaa insha Allah shirkan oo sanadkiiba mar la qabto
ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay ka kala yimaadeen gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka. Waxa ayna go'aan ku wada gaareen sidii loo horumarin lahaa deegaankaas. Siyaad Siciid Saalax, Somali Channel, Minnesota.